dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan war wixii maanta naga soo gaaray adduun weynaha. dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ku taala dalkan Holland, Luis Moreno Campos, ayaa laga sugayaa maanta in uu shaaca ka qaado eedo ku saabsan dembiyada dagaalka gobolka Darfur oo ka tirsan dalka Suudaan. maanta ayuu horkeeni doonaa maxkamadda magacyada qaar ka mid ah dadka lagu tuhunsan yahay in ay geysteen dembiyo dagaal. waxaana dhici karta in uu sheego in dacwad lagu soo oogi karo madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir. eedayntan ayaa noqon doonta tii ugu horreysay oo dacwad ooge ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Den Haag oo dacwad ku soo oogo madaxweyne taladii weli haya. mas-uuliyiinta dalka Suudaan oo mudaharaad weyn isugu yeedhay shacbi weynaha dalkooda maalintii shalay ayaa sheegay in aanay aqoonsanayn maxkamaddan oo fadhigeedu yahay magaalada Den Haag ee dalkan Netherland. isla Suudaan wararka ka imanaya ayaa sheegaya in ay ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen mar buuq ka dhacay la isku jiiray garoon kubadda cagta oo ku yaala magaalada Durmaan oo aan ka sii fogeyn magaala madaxda Khartoum. shirweyne ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha ilaa 40 dal oo kulaala badda Mediterranean-ka ayaa ka bilaabmay caasimadda Paris ee dalka Faransiiska. waxaa shirkan ku kulmi doona hogaamiyayaasha dalalka Afrikada Waqooyi, wadannada reer Yurub iyo bariga dhexe ee kulaala badda Mediterranean-ka. shir madaxeedkan ayaa la rabaa in lagu asaaso midow ay leeyihiin wadannada kulaala baddaasi, waxaana kulankan si wada jir ah u daadihin doona madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo dhiggiisa dalka Masar madaxweyne Xusni Mubaarak. xukuumadda Tripolis ayaa ku gacan saydhay mashruucan oo uu wato Faransiisku. hogaamiyaha Liibiya Muammar al-Qadaafi ayaa sheegay in uu shirkani yahay mid lagu jahwareerinayo laguna mijaxaabinayo wadannada Carabta. ugu yaraan 9 ka mid ah ciidamada Maraykanka ee jooga dalka Afghanistan ayaa ku dhintay dagaal ay isaga hor yimaadeen dagaalyahaniinta ururka Taliban. dagaalkan oo ka dhacay meel ku taala waqooyi bari ee dalka Afghanistan oo u dhow dhulka ay degan yihiin qabaa'ilku oo ku taala xuduudka dalka Pakistan iyo Afghanistan. khasaarahan ayaa noqon doona kii ugu badnaa ee maalin keliya lagu dilo tiro intaas leeg oo ciidamo ka tirsan xulafada uu hogaaminayo Maraykanku ee ku sugan waddanka Afghanistan tan iyo markii ololaha militari ka bilaabmay dalkaasi sannadkii 2001. Talibanka ayaa si kedis ah u soo weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada Maraykanka oo ku yaala degmada Kunar, waxaanay weerarkan u adeegsadeen hub noocyo fudfudud oo iyagu farsamaysteen. isla dalka Afghanistan 24 qof oo badankoodu yihiin rayid ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen shirqool qarax ismidaamin ah oo ka dhacay koonfurta waddanka Afghanistan. saraakiisha dalka Itoobiya ayaa daboolka ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen 8 qof oo looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen qaraxyo gilgilay horraantii sanadkan magaala madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. xaaladda degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo 2 maalmood ee ugu dambeysay kacsaneed ayaa maanta degan, inkasta oo ay dadka rayidku guryahoodii ka barakacayaan. shalay ilaa doraad ayaa ciidamada dawladda ku meelgaadhka iyo Itoobiyaanku ay ka sameeyeen howlgallo baadhitaanno ah oo aan la ogeyn waxa ay uga gol lahaayeen. isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa dib uga bilowday inkastoo aan weli la furin meelo muhiim ah sida suuqa weyn ee xoolaha lagu iibiyo ee degmada Daynile oo maalintiisii 3aad isagu xidhan. ma jiraan wax wara oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dawladda ku meelgaadhka Soomaaliya iyo maamulka degmada Daynile oo la xidhiidha howlgalladaasi iyo barakacan ka bilowday degmadaasi Daynile. inkastoo ay magaalada Muqdisho ay tahay goob dagaal ayaa haddana waxaa si ballaadhan uga howlgala haween iyagoo isku xil saara in ay wax ka qabtaan nadaafadda xaafadaha ay degan yihiin ee magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. haweenkan ka shaqeeya nadaafadda qaybo ka mid ah gobolka Banaadir ayaan jirin cid wax mushahara ku siisa howlaha ay qabtaan ee nadaafadda, waxaana haatan haweenkan la soo darsay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dagaalada ay isku hayaan dhinacyada kala duwan, iyadoo qaarkoodna ay la kacdo miinooyinka dhulka lagu aaso oo sannadkii hore ay ku geeriyoodeen haween badan oo nadaafadda waddooyinka waaweyn ee magaalada madaxda Muqdisho ka wada. qaar kale ayaa ka cabanaya kooxaha xabadda iyagu isku ridaya iyo ciidamada Itoobiyaanka oo sheegay in aanay haweenkaasi u soo dhowaan karin meelaha ay joogaan, iyagoo ugu marmarsiyoonaya in dadka iyaga ka soo horjeeda ay ku soo gamban karaan.
golaha dhaqanka iyo midnimada beel ka mid ah beelaha koonfurta Soomaaliya ayaa eedayn u jeediyey maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen in ay dad ka tegay deegaanada koonfureed oo u sii jeeday magaalada Hargeysa ay xidhxidheen. Maxamed Xasan Xaad oo u hadlay beel ka mid ah beelaha gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadka uu maamulka Puntland xidhxidhay ay ahaayeen dad isugu jira kuwa u socday seminaar ka dhacaya magaalada Hargeysa iyo qaar kale oo qoysaskoodu joogaan magaaladaasi. wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo 11 qof lagu qabqabtay magaalada Gaalkacyo. 9 ka mid ah dadkaasna ay u socdeen seminaar ka furmayay dhowaanta magaalada Hargeysa. Axmed Diiriye Cali oo ah afhayeenka beelahaasi ayaa ka dalbay mas'uuliyiinta maamulka Puntland in ay dadkaas oo aan waxba galabsan xabsiyada ka sii daayaan. qodobkaas ayaa inoogu dambeeyay warkayagii maanta dhageystayaal. halkaad warka kala socoteena waa hoygii Soomaalida Holland.